Please subscribe, like and share and comment si aan kugu soo gudbino barnaamijyo kale oo xiiso badan insha Allah. bedelitaanka noloshaad ku sugan tahay ka bixidda xaaladda liidatay aad ku sugan tahay haddii aad ku jirto xaalad aad u aragto mid aadan jeclayn mid aadan ku qanacsanayn oo aad isu aragto in aad dhiiqa lugaha kula jirto noloshaaduna tahay mid fashil ah haddii aad niyadda gashatay in aadan wax isbeddela samayn karin oo aadan ka bixi karin xaaladda aad ku sugan tahay oo aad quusatay halkan waxaan kugu soo gudbinayaa 4 qodob oo insha Allah kaa kaalmayn doono in aad ka baxdo xerada ariga aad ku sugan tahay in aad u gudubto nolol wanaagsan oo aad ku qanacsan tahay qodobka koobaad mas'uuliyadaada dusha u rido waxaa jira xikmad Faransiis oo leh maalinta ugu fiican noloshaada waa maalinta aad go'aansato in noloshaada aad adigu maamusho in noloshaada iyo masiirkaada ay gacantaada ku jirto in aadan dad kale mar walba ka sugin in wax lagu sheego bedelitaanka wadciga aad ku sugantahay mas'uuliyadeeda adiga leh ma jirto cid kale oo ku imaanayso oo sariirta ku goglayso in aad gacanta ku dhigto go'aanada naftaada in aadan isku halaynin qof kale nin dadka fikiraya oo lagu magacaabo Leo Tolstoy ayaa yiri qof kasta oo anaga naga mid wuxuu ku fikirayaa inuu caalamka bedelo laakiin ma jiro hal qof oo ku fikiraya inuu bedelo naftiisa adigoona naftaada bedelinna caalam iyo cid kale ma bedeli kartid maalinta aad sugto in qof kale hadda ku imaado ku hormariyo kana bixi xaaladda aad ku sugan tahay waa maalinta aad si fiican dhiiqada u sii gashay qodobkan koobaad waa in aad ogaato in arrimahaada noloshaada mas'uuliyadeeda aad adiga dusha u ridanayso in aad mas'uuliyad isi saarto una dulqaadato go'aanada aad qaadanayso in aadan weligaa ku tiirsanaanin tala lagu siiyo haddaba ka bax aqliyadda maxaan sameeyaada mar walba dadka weydiinayso go'aan qaado iskuna tiirso ilaahayna tala saaro qodobka labaad calaamadee xariiqa noloshaada waddada noloshaada sumad u yeel inta badan waxa dhibaatada nagu keenayo nagana dhigayo kuwa iska fadhiyo meeshooda waa in aanan aqoonin waxa aan samayn doono in aanan dejinin wax istiraatiijiyad ama khudada ah oo aan ku socon in nolosheennu ay tahay sabahlala wax iska socdo oo dhinac loo raacaan lahayn ujeeda jiha aanan lahayn maadaama aan ka hadlayno ka bixitaanka xaaladda xun iyo nolosha isbeddelka aanan lahayn oo dhaqan haddaba sidii qof ka qaybgalayoo kale shir xuduud cusub lagu jeexaayo shir waddan cusub lagu dhalinayo xuduud cusub iyo jiha cusub loo jeexaayo deji ama calaamadee waxyaabaha aad u baahan tahay in aad ka xubsiibato sida caadada xun ee inta badan dhalinyarada ku imtixaanan yihiin waxaan ku qasbana magaceeda inaan sheegnay siigada loo yaqaan oo ah musiibo dhabarka kaa jebinayso waa ficil kaa dhigaysa inaad ku wareegato hayndaab aadan ka baxaynin noloshaada waxay ka dhigaysaa sidii qof ku wareeganayoo kale qol aad u yar oo daaqad iyo albaab laga baxa aan lahayn weliga adaa isku wareegani murug iyo shalayta waxaanayna kama dhexlaysid waxaa la gaaray wakhtiga aad xoroobi lahayd oo aad arrinkaas ka dhigi lahayd wax laga soo gudbay haddeertaan oo aad muuqaalkan daawanayso ka dhig waxaan ka soo hadlaynay wax laga soo gudbay oo arag wixii aad samayn jirta ee xumaa wax la soo dhaafay oo aadan dib dambe u samayn doonin tan kale waa in aad leedahay mabaadi' guud oo aad ilaashanayso in aadan ahaanin qof wax diin iyo akhlaaqi mabda aanan lahayn waxaanahay dad muslim ah waxaan leenahay oo jiro akhlaaqiyaad guud oo loo baahan yahay in la ilaaliyo kelmadaha aad adeegsanaysa beddel inta badan nasiib xumo dhallinyaradeen afkooda waxaa ku badan hooyadaa waxaas ku samee arrinkaas samee oo kelmad aad iyo aad u xun kelmadaha noocaasoo kale ka xubsiibo qof sharaf loo karaamo leh dib dambena ha u adeegsan kelmadahaas kuna dadaal waajibaadka sida salaada oo kale in aad noqoto qof ka xubsiibtay noloshii hore ee ahayd qof ku dhex nool sidaan soo sheegnay oo kale xero ari oo firada iyo saalada kolba dhinac uga imaanayso wax ka xun ma lahan qofka aanan qiyam lahayn ee noloshiisu tahay iska soco xaaraan iyo xalaalba aan kala aqoonin qodobka saddexaad caadooyinkaada beddel waxaan ula jeednaa caadooyinka xunxun iyo kuwa aanan waxba kugu soo kordhinaynin kuuna jiidayo dhinaca godka qashinqubka inteenna badan waxaan ka cabanaynaa caadooyin wax aan si joogtaha u samayno oo dib u dhac nagu keenayo qofkii caado xun ka tagaa ilaahay ayaa ugu beddelayo mid ka wanaagsan warqad iyo qalin soo qaado kadibna bal qor oo diiwaan geli caadooyinka aad u aragta in ay yihiin kuwa xunxun oo aad samayso kadibna go'aan ku qaado in aadan samayn doonin sidoo kale qor caadooyinka wanaagsan ee aad u aragto haddaad ku taagnaato inaad horumar gaarayso aayadda ah ina allaha laa yugayiru maa biqowmin
xataa yughayiruu maa bianfusihim kuma socota keliya mujtamaca si guud ahaaneed ama dalka ama dadka keliya kuma socoto waxay la hadlaysaa sidoo kale adigan qofka ee shakhsiga anfusihim waa jamaca anfus naf mujtamacan wuxuu ka kooban yahay naf lagu daray naftaadana waxay ka mid tahay mujtamacaas sidaas darteed waaba bishaaro ilaahay xaggiisa ka imaaday oo qofkii nolosha xunta uu ku sugan yahay iska beddelaa ee dhinaca wanaaggaada in ilaahay uu asagana qofkaas in ilaahay uu ku gacan qabanayo kuguna saacidayo arrinkaas qodobka afaraad 1,000 kilomitir wuxuu ka bilowdaa hal tallaabo markii aad ogaatay waxa aad rabto in aad samayso iyo waxa aad ka tegayso waxaa ku hor yaallo sidii aad u hergelin lahayd qodobadaas aad dejisay waxaa laga yaabaa in ay naftaada kugu qanciso arrinkan in aadan samayn karin oo aadan isbeddelkaas iyo qodobadaas aad dejisay aadan ku dhaqmi karin haddaba waxaad ogaataa markaad go'aan isbeddel qaadato inaad u baahan tahay in aadan degdegin oo aadan isdhihin aaway natiijadii go'aanadii aan dejiyey tallaabo u soco haddii aad fashilanto ha quusanin hana niyad jabin khidaddii aad dejisay ku soco caqabad walba oo ka hor imaado ha istaagin waxaa la yidhi inta aad isku dayayso guul ayaad ku socotaa inta aad waddo isku day hawshaad qabanaysa si kastay u culustay oo loo arka in aad fashilantay maadaama aad isku dayayso oo aad isku day waddo waxaad ku taagantahay waddadii guusha laakiin maalinta aad gacmaha taagato oo aad isdhiibtoo tidhaahda arrinkan ma samayn karo maalinkaas ayaad fashilantay naftayda iyo adinkaba waxaan idiin rajaynayaa guul iyo in aan ku noolaanno nolosha aan jecelnahay ee aan u qalanno intaas ayaan jeclaystay maanta inaan idinla wadaago wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu